in xariga la isaga kala gudbo waa tallaabo waa buuraha dhaadheer oo ku dhex yaalla Kenya waa arrin ay adag tahay inuu qof walba sameeyo gaar ahaan kuwa aan jeclayn inay meelaha sare ka soo eegaan dhulka haddaba kayn aan sida uga sii fogeyn magaalada Nairobi ayaa waxaa laga sameeyay goob loo dalxiis tago wariyaha BBC-da Suhayba Maxamed Badqas ayaa laftigeedu inta raacday xarigaasi oo warbixintan noo soo dirtay halkani waa kaynta Karaite oo ku taal buuraleyda Aberdare oo ah goobta ay biyaha uga yimaadaan magaalada Nairobi waxayna haatan noqotay goob dalxiis oo bariga Afrika caan ka noqotay oo waxa buuraha loogu kala gudbaa xarig isku xiraya labada buur oo qofka isaga oo ka daldalan uu dhinaca kale u talaabayo waa buuraley muuqaal gaar ah u leh dadka reer Kenya oo boqol ayay halkan u yimaadaan oo u soo daawasho tagaan qaarna cabsida ayayba isaga baabi'iyaan waxa la gaaray xilligii aan tagi lahaa dhinaca kale ee xarigan uu ku xiran yahay dhirkiisa waa 430 mitir halka saacna waxa uu jarayaa 60 ilaa 70 waan dabcan waan cabsoonayaa oo cabsi yar ayaa igu jirta laakiin waxaan rajeynayaa in si nabad aan halkaas ku gaaro nasiib wanaag hawlaha halkan ka socda waxa gacanta ku haya kormeerayaal khibradooda heer caalami ay tahay xargahna waxay xajin karaan culays dhan 9 tan محمد اوكي هايت marka waa kana hadda marka hore waa cabsoonahay laakiin hadda caadi ah haysan nabad halkan ku imaado waan ku faraxsanahay markii ugu horreysay imaado waaye aad baan u cabsanayay laakiin markaan markii ugu horreysay aan raacay waxaan u arkay inuu aad u fiican yahay waa la qabsaday ma dareenkay marka koowaad iyo markii hadda ugu dambeysay waa aad u kala duwan yahay hadda u jeed gacmaha wala deena marka loodnaha Allah nabad ku gaarsiiyay naga taagneed marka hadda alxamdulillah waa la qabsanay inkastoo dad ajaanib ah ay u soo dalxiis tagaan halkan haddana maamulka goobtani waxay doonayaan in ay soo jiitaan dad badan oo ku dhaqan bariga Afrika markaan mashruucan bilownay waan yara warwarsaneen maadaama uu ahaa wax dadka Kenya ku cusub laakiin sidii ay dadka uga falceliyeen ayaan aad uga helay shirkadda aasaasta mashruucan waxa ay si dhow ula shaqaysaa wakaaladda ilaalinta duurjoogta Kenya si loo xaqiijiyo in mashruucan uusan waxyeelayn kaynta waxa uuna korontada ka helaa tamarta cadceedda marka ay dadka xargaha ka laalaadaan oo ay buuraha u kala gudbayaan ayaa waxa ay si fiican dusha uga arkaan quruxda deegaanka cagaaran ee hoose Suhayba Maxamed Badqas BBC Nairobi